kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka Somali TV oo aad si toos ah ugala socotaan bartaanu ku leenahay YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook page-ka. qodobada wararkayga ugu waaweyn ee aad maqli doontaan ayaa waxaa ka mid noqonaya wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in xilligan ay suurtagal tahay in Mareykanku uu sameeyo tijaabada nukliyeerka bilaha fooda inagu soo haya. madaxweynaha dalkaasi isla Mareykanka Mr. Trump ayaa shirkadda Twitter ku eedeeyay in ay faragelin ku hayso qoraalada uu ku baahiyo barta uu ku leeyahay shirkaddaasi Twitter. dhakhtar u dhashay dalka Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in heerkulka sareeya ee cimiladu uu hoos u dhigo fiditaanka caabuqa COVID-19 ee faraha baas ku haya adduunka. isla waxaynu ku jirnaa wararka dalkaasi Mareykanka ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka socda mudaharaad looga soo horjeedo dil loo geystay nin madow ah oo aan hubaysnayn. dilkaasi ayaa waxaa geystay ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. qodobadaas ayaa daawadayaal ka mid ah kuwa ugu dooroon ee aad warkayga Somali TV ku daawanaysaan. imikana qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawanaysaan ee soo dhawaada. aynu ku bilowna ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka socda banaanbax looga soo horjeedo dil loo geystay nin madow ah oo aan hubaysnayn. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsanaya dadka dibadbaxa sameynaya. qabanqaabiyayaasha dibadbaxayaashaasi ayaa sheegay in qorshahoodu ahaa in ay dibadbaxa u dhaco si nabadgelyo ah iyagoo oo raacaya tallaabooyinka kala fogaanshaha bulshada ee lagula tacaalayo faafitaanka COVID-19. dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqaya ereyo dhowr ah iyagoo ereyadaasi ay ka mid yihiin ma neefsan karo. afarta askari ee booliiska ka mid ah magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa shaqada laga eriyay kadib markii la arkay muuqaal laga duubay dilka ay u geysanayaan ninkaasi madow ee aan hubaysnayn. boqolaal qof ayaa galabnimadii salaasadii isugu soo baxay kadib markii maalintii Isniinta ahayd booliisku ay dilka u geysteen ninkaasi madow. madaxa booliiska ee magaalada Minneapolis ayaa sheegay in afartan askari ay hadda yihiin shaqaale hore. muuqaalkan la baahiyay oo uu askari caddaan ahay lugta uu kaga hayo qoorta ayaa ereyada ninka madow inta aanu dhiman ka hor waxa uu isticmaalayay ereyo ay ka mid yihiin ma neefsan karo iyada oo la arkayay askariga oo luqunta uga taagan. dhacdadan ayaa ka caraysiisay dad badan iyadoo aad loogu hadalhayo gudaha dalka Mareykanka. FBI-da Mareykanka ayaa sheegtay inay baarayaan kiiskaasi oo ay fiidnimadii Isniinta ahayd ka dhacday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. booliiska Minneapolis ayaa ninkan 46 jirka ah waxa ay sheegeen in uu ka shaqaynayay makhaayad ku taalay goobta lagu tilay agteeda. galabnimadii salaasada ahayd ayaa duqa magaalada Minneapolis waxa uu cadeeyay in shaqadii laga caydhiyay afartii askari ee kiiskaasi ku lugta lahaa. waxaana uu duqa magaalada Minneapolis arrintaasi ku tilmaamay in ay tahay shaqada dhabta ah ee ay qabteen. wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay suurtagal tahay xilligan inuu Mareykanku sameeyo tijaabada nukliyeerka bilaha fooda inagu soo haya. majallada Defense News ayaa soo xiganaysa afhayeen u hadlay Pentagonka Mareykanka waxaana uu yidhi waxaanu samayn doonaa tijaabada haddii uu madaxweyne Trump ogolaado weliba sida ugu dhaqsiyaha badan. Mareykanka ayaa tijaabiyay nukliyeerka waxaana ay ugu dambeysay sanadkii 1992 xilligaas oo uu dhammaaday dagaalkii qabooba. madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa shirkadda Twitter ku eedeeyay in ay faragelin baas ku hayso qoraalada uu ku baahiyo barta uu ku leeyahay shirkaddaasi. shirkadda Twitter ayaa calaamadda buluuga ah dul saarta qoraallo badan oo uu baahiyay madaxweyne Trump taas oo cadeynaysa in warkaasi aanu sax ahayn. shirkadda Twitter ayaa qoraalada aan xaqiiqda ahayn dul dhigta calaamadaasi si looga taxadiro macluumaadka uu xambaarsan yahay. Trump ayaa qoraallo dhowr ah oo soo dhigay ay saartay calaamadaasi buluuga waxaana uu shirkadda ku eedeeyay in ay faragelin baas ku hayso doorashooyinka soo socda ee Mareykanka.
markana haddaynu eegno cilmi baadhis uu sameeyey dhakhtar u dhashay dalka Talyaaniga waxa uu xaqiijiyay in heerkulka sarreeya ee cimiladu ay hoos u dhigayso fiditaanka caabuqa COVID-19 balse aanu gebi ahaan badilayn fayraskaasi. dhakhtarka ayaa sheegay tijaabo ay sameeyeen in ay ku ogaadeen taasi. intaasi ayaa dhakhtarku waxa uu ku daray sidoo kalena uu sheegay in marka cimilada qabow ay kor u kacdo ay xaaladda xanuunkani aad ay ugu sii fudayso hadba halka uu ka jiro. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadiisa uu kala baxayo dalka Afghanistan laakiin ay ku soo noqon doonaan xilli kasta oo ay u baahdaan. Mareykanka ayaan weli jalwad aan u dhigin ka soo bixitaanka ciidankiisa Afghanistan laakiin heshiis hordhaca oo uu la galay ururka Taliban ayaa dadajinaysa in Mareykanku uu ciidamadiisa sida ugu dhaqsiyaha badan ugala baxo dalkaasi. Mareykanka ayaa 19 sano ee u dambeeyay joogay dalkaasi Afghanistan kuwaas oo dagaal kula jiray urur diimeed kala duwan oo ay ka mid yihiin Taliban, Al-Qaacida iyo ururka Daesh iyo ururo kale. dadka deegaanka oo aan marnaba raalli ka noqon joogitaanka ciidanka Mareykanka ayaa tallaabadani soo dhaweeyay. mid ka mid ah xarumaha caafimaadka cilmi baadhista ugu waaweyn dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay inay gacan ka geysanayaan tijaabada tallaalka cusub ee jaamacadda Oxford ay soo saartay ee looga hortagayo caabuqa COVID-19. magaalada Kilifi oo ku taalla gobolka xeebta ee waddanka Kenya ayaa laga bilaabi doonaa howlaha tijaabada ee tallaalkaasi. mas'uul u hadlay xarunta ayaa sheegay in ay ka shaqayn doonaan diiwaangelinta 400 oo shaqaale caafimaad oo la filayo in ay isku xilqaamaan ka qayb qaadashada tijaabadaasi. hawshan ayaa lagu tilmaamay mid qayb ka ahaanaysa dadaalada loogu jiro yaraynta caabuqa COVID-19. guud ahaan dunida waxaa ka socda tartan dhinaca cilmi baadhista ee saynisyahanadu ugu jiraan sidii dawo loogu heli lahaa cudurka safmarka ee faraha baas ku haya adduunka ee COVID-19. daawadayaal qodobkaasi ayaa gabagabo u ahaa wararkii Somali TV. anigoo Cabdirashiid Cali Barraana waa idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.